maanta madasha gabanayaasha ama gabanatorada ama barasabyada FCDC inta xigta macnaha xagga waqooyiga waxaan baaq u dirnay anagoo gabanayaasha iyo xigeenada inta samaha jecel samafalayaasha deeq-bixiyayaasha iyo ismaamulada naftooda inay ka howlgalaan arrintan muddana soo socotay haddana moodo inay sii daba dheeraanayso abaaraha iyo si degdeg ah inaan wax uga qabanno waxaa nagu sii baahanaya oo sii badanaya baahida ka imanaysa abaaraha daba dheeraaday iyo dhibkay la imanayaan waxaa markaa anaga oo nolosha ah baaq u dirnay inta samaha jecel samafalayaasha deeq-bixiyayaasha dowladda dhexe iyo ismaamuladaba inay ka howlgalaan arrintaas si degdegana uga howlgalaan bulshadana inta awoodana laga samata bixiyo baahida isbarkatay soo dheeraatay daba jiitintay run ahaantii aadna moodo inay sii socon doonto insha allah ilaahay naga samata bixiye inaan ka howlgalno baaqa asaga ahna waxaan ku celcelinaynaa inta samaha jecel inay ka howlgalaan dowladda dhexena si degdeg ah hawshaasi wax uga qabato annagana haddii aan nahay maamul waa ka howlgelaynaa insha allah xoogaa caqabadaha jira dhanka mataqaanaa miisaaniyadda iyo budgetka oo weli la marin laakiin sida uu dhaqsaha badan baan ka howlgelaynaa haddaynu ismaamulku wajar u yahay laakiin si guud ahaaneed waxaan baaq u dirnay inta samaha jecel ay kow ka tahay dowladda dhexe iyo deeq-bixiyaasha kaleba inay hawsha iyada wax ka qabtaan gacan midigna hawsha iyada ah iyo mudnaanteeda siiyaan si ummadda mataqaana uga samata baxdo baahida saamayntu way baaxad weyn tahay aad u ballaaran tahay dadkii xoolo la'aan baa ku dhacay xoolo badan baa ka dhintay dad badan oo soo barakacay baadiyaha ka soo barakacay xoolada intay ka dhinteen tuulooyinka iska jooga ama magaalooyinka soo gala baa jiro oonan hawl haynin shaqo kalena aan aqoonin aan ka ahayn xoolaha la dhaqdo dad badan oo xoolaha ayaga ku noolaa cad iyo caanaha ku noolaa ayaa maanta aan haysanin qutulyoonkooda aan heli karin waxaa jiri jirtay dad badan oo siyaabo badan ugu noolaa xoolahaasi ama xag cunno ha noqoto ama xag tacliinta oo school feeska laga bixin noqoto ama dhan walba xoolaha ku noolaa ayaa maanta heli karin waxay ku noolaadaan aan heli karin shaqo yaqaan oo aan ka ahayn xoolaha ay dhaqdaan aan jirin magaalada hadday kusoo barakaceen waxaa sii ballaaranaya baahidii oo sii daba jiitamaysa taasoo keenaysa inay dad kale dhan intaa ka sii badan ay soo barakacaan ama ay noqdaan mataqaana howlgab ay ku dhacdo waxay yaqaaneen aysan haynin wax kaloo hadda markaa iyada magaalada ay ka helaan aysan jirin wax markaa iyada baahidana baahi hadda ay dowladda si degdega countiga degdeg uga qaban karta ma aha wax u baahan inaan gacmahaas wada qabsano dowladda dhexe dowladda countiga iyo deeq-bixiyaasha kaleba inaan gacmahaas qabsano si hawsha iyada waxqabad degdega nooga qabanno baahidana way ballaaran tahay maanta dadkana xoolaha lagu noolaa wax soo saar kale ma sii jirin xoolihii haddii macnaha ay ka dhammaadeen inta yarada soo harteen dab abarta ay sii dibadjitimayso baad la cunana uusan jirin dadkina ay sii fogaanayaan oo qaarkood xuduudaha ay sii goynayaan marka waxaa dhacaysa in dadkii baahida ay sii ballaarato siday sheegayaana roob hadda xag alluu ka yimaada laakiin hadda qiyaasta la sheegaya inuusan roobkii dib u dhacayo ayaa la tilmaamaya marka saa darteed baan u baahan nahay baaqa waxaa keena waxay ahayd wixii la arkayo in saamaynta la arkayo iyo cabsi laga qabo inuusan roobkii dib u sii dhaco dadkiina waxa kaloo yaqaanaan aan ka ahayn xoolaha ay dhaqdaan aanan jirin magaalooyinkana ka soo barakacaan iyo tuulooyinka dhibaatooyin badan baa marka jirta dhibaatooyinkaasa keen marka baaqi inaan dirno insha allah annagana waxaan dowladna wixii karaankanaga markii hadda miisaaniyadda la maray insha allah waxaa ugu horreyn qabanayna waxaa ka mid ah abaarta iyadana wax ka qaban insha allah aad u mahadsantahay